sheekh nuur cismaan oo ah imaamka masjidka sheekh cabdulqaadir oo ku yaala degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho waxa aan su'aalay waxa ay diinteennu ina farayso oo ah in la caawiyo dadka danta yar. sheekh nuur maanta anagu waxaan booqanay meelo ay ku dhaqan yihiin dad barakacayaalihi oo gudaha magaalada muqdisho dadkaas duruufo badan baa ka muuqatay inkastoo waxaana lagu jiraa oo ka warhaysaa in 10kii dambe Ramadaanka oo gabagaba yahay sidoo kale ciyaal badan oo Soomaaliya ayaan la soo kulannay oo marka aan awoodin waxay ku ciidaan bal sheekh nuur maadaama uu tahay culimada diinka Soomaaliyeed bal dadkaas maxaad oran lahayd in wax loo qabto bal iyo xagga diintu waxa ay naga tiri la kaalmeeyo waa waxa ay diinteenu ku soo aroortay oo Ilaahay u soo dejiyay subhanahu wa ta'ala dadka aqniyada dadka madaxda dadka mas'uuliyiinta oo Ilaahay wax siiyay marka koobaad diinteenu waxay faraysaa dadka danyarta inay u naxaan inay nafaqeeyaan haday ciid u baahan yihiin inay u ciidsiiyaan oo ay u gadaan wax kasta oo farax gelinaya inay dacaamki ka bixiyaan kuwaan cunada haysanin quraankeena ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku yiri wayudcimuuna dacaama على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا dadka usarada oo la soo qafaalay dadka agoonta dadka masaakiinta ee fuqarada aan waxba haysanin in la kaalmeeyo oo la gacan qabto diinteena islaamka ka hadashay waana barnaamij aad u ballaaran oo muhiim ah qof walba la rabo inuu qaybtiisa uu ka qaato dadka madaxda iyo dadka ganacsatada siiba leen iyagu qofka mas'uulka waxa uu raaci ka yahay dadkan oo inuu adeego khidmadoodii wixii khadamaadaha ay u baahnayeen in loo qabto loogu talagalay sidoo kale ganacsatada oo dadkii maalka haystay inay iyaga nafaqeeyaan ay wax siiyaan oo qof walba meeshooda intay ku booqdaan inay wax siiyaan haday zakatu fidrigi tahay iyo haday tadawuci tahay mid walba la mid waayo zakadu ama waxyaalaha la bixinayo dhan way noocyo badan yihiin oo sadaqadu anwaac badan bay ka kooban tahay kuwa waajibaad jira kuwa oo sunnooyin jira mid walba oo noocay tahay in la nafaqeeyo zakatu fidrigi laga bixiyo oo maaragtay la nafaqeeyo midaas bay diinteenu nafaraysaa waana barnaamij aad u muhiim ah وإن شاء الله تعالى وحنا رجينا dad maaragtay dadku ay meelaha maaragtay fantay shiyaha iyo meelaha wixii waxa laga marka ku ciidaan maalmahaas bal arintaana maxaa dadka Soomaaliyeed oo baaqa oo aad u jeedin lahayd ma jirtaa mahadsan tahay faradheere waxa weeyaan bal qoray waxyaalaha caadada ah oo dhaqamada ku salaysan oo sida in fanaaniin la soo kulmiyo inay heese la dhageysto oo maalinkii ciid ahayd oo farxadii oo diintii la iswacyi gelin lahaa oo khayrkii iyo wanaagii Ilaahay diirigiisa iyo quraankii loo banbixi lahaa oo qaraabadii la soo salaami lahaa dadku inay ma fanaaniin iyo heese dhageysi iyo waxyaalo maala yacniya ay ka daba orordaan waxba tari mayso wax faa'iido ah ka heli mayso inaad tiraahdo waa ciid oo maanta wax walba iska furan oo haddana wax munkar aad samayso diinteena islaamku ma qabto munkar wax la yiraahdo lagu ma ciidi karo wax ciid munkarku ciid ma galo sidiisaba qofka muslimka ana wixii munkar meel uu ka soo gaadhay inuu ka dheeraado ay shariicada islaamku faraysa inaad fanaaniin iyo kuwa heesaya iyo balaayo la soo kulmiyo durbaan la garaaco balaayo la sameeyo ciid ma noqonayso way bal iska dhaaf ciidii bay fasaad u keenaysaa ciidu fasaad u keenayso dawaameel maalin Ilaahay u barakeeyo dadka islaamka inay farxaan oo qaraabadooda xiriiriyaan oo u tagaan oo ciyaalka laga farxiyo dadka iyo in bishii ay soo cibaadeysan bishii dhannayd ay soo cibaadeysan ay ku farxaan farxadaas ay muujiyaan bay shariicada islaamku ugu tala gashay laakiin wixii shariicada islaamku farxadii inaad munkar ka dhigto shariicada islaamku ma qabto waana wax inaga burbur noo keenayo dhibaato noo keenaya wixii khayrka ahaa iyo wixii sharta ah in la isku dhax daro Ilaahay baa kala saaray oo khayrka iyo sharta wixii xalaashay wax xaraamta waana loo kala cadeeyay inayna ku kadsoobin waxyaalaha qaarkood ciid la sameeyo fanaaniinta intii la soo kulmiyo in meelaha lagu heeso heese lagu dhageysto balaayo la sameeyo dadku ay sacbiyaan oo maanta dhan munkar laga shaqeeyo hada wax diinteenu ay qabto ma ahan waa inay dadku maalinka salliga oo kaliya adkaarta iyo in la badiyo waa sax waa mustahab wixii dhikri Ilaahay ba ku saabsan wixii daacada Ilaahay hatta wixii oo fantasiyo oo aan wax munkar baalkan dambuurka la yiraahdo oo gurbaanada oo fanaaniintu ay ciyaaraan iyo waxaas waa la diidaya dafkii iyo dibladii iyo shariicadeena islaamku way banayn jirtay way hadii daf intii la soo qaado dadku ay garaacaan
dhimi mayso oo farxaddaas waa la sunnaya xataa cursiga rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam marar badan uu baneeyay way jirtaa aroosyadoo kale iyo dafka in loo garaaco laakiin waxaa la diidayaa waxyaalihii shariicada islaamku ay xarimtay in lagu dhex sameeyo cibaadada dhexdeedii salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam digrigii ilaa noocyadiisa kala duwan noocu raba ha noqdo ama mid jahri ha noqdo ama mid kale oo qeyrkii ha noqdee mid kasta waa la sunnayaa wixii cibaado ilaahay iyo taqarrub ilaahay loogu dhawaanayo waa la sunnayaa qofku inuu ku dadaalo daawadayaal waxaan intaas ku soo gabagabanaynaa waraysi aan la yeelanay Sheekh Nuur Cismaan oo ah imaamka masjidka Sheekh Cabdiqaadir ee degmada Xamarweyne sheekh aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaa waqtigaad nasiisay intaas ayaan barnaamijkan ku soo afmeeraynaa waxaan idin la socodsiinaya anigoo Maxamed Cabdi Cismaan Faradheere saaxiibkay baa xagga kaamirada iga caawiye Xasan Yare inta barnaamijkan lamida ku kulmi doono waa Faradheere iyo Sheekh Nuur oo idin la sida iyo nabadgeliyo